kaalinta toddobaad ayay quwad ciidan ahaan dunideena uga jirtaa Pakistan taa oo tirada ciidamadeeda ee dagaal geli kara ama waxa loo yaqaano active military personnel-keedu haatan yahay 550,000 oo askari sida la wariyay halka ciidamada kaydka ah ee wadanku iyaguna yihiin 500,000 oo askari taasoo ka dhigan inay tiro ahaan ciidamada kaydka ah ee Pakistan ka badan yihiin kaydka ciidamada Iran 6.34 bilyan oo dollar ayaa lagu sheegay maaliyadda sanadkii Pakistan uga baxda ciidamada budgetkaas oo ah mid ka yar inta Iran uga baxda militarigeeda ogow Iran waxay ku jirtaa kaalinta 14aad marka ay joogto quwadaha ciidan ee dunideena ilaa sanadkii 1963 Pakistan waxay cilaaqaad military oo xooggan la leedahay dalka China kaasoo siiya kaalmada military ee ugu ballaaran China waxa uu horumariyay noocyada hub ee JF-17 iyo K-8 ee ciidamada Pakistan ilaa sanadkii 2021 dalka China waxa uu ahaa supplier-ka ugu weyn ee qalabka ciidamada Pakistan sida xogtu warisay ogow Pakistan waxay ka mid tahay wadamada dunideena ee ku hubaysan quwadda nukliyeerka docda kalena waa dalka kaliya Islaam ah ee haysta nuclear rasmi ahaan Pakistan waxay sidoo kale cilaaqaad military oo isaguna xooggan la leedahay waqti dheer dalka Mareykanka waxayna dalkan sanadkii 2004 siiyeen wax loogu yeeray Major Non-NATO Alliance-gaas oo isaguna kaalmeeyay horumarinta quwadda militariga Pakistan sida xogtu warisay in ku dhow 70% ciidamada Pakistan waxay ku sugan yihiin xuduudda dalkaasi la wadaago India ee gobolka Kashmir ogow ilaa waagii la asaasay militariga Pakistan oo ahayd 1947 waa isla waagii Pakistan xorriyadeeda ka qaadatay Ingiriiska waxay dagaalo cusla la galeen militariga India kuwa oo dhacay sanadihii 1947 1948 1965 iyo 1971 guulo waaweyn ayayna ka hoyeen dagaaladaas intooda badan Pakistaaniyiintu muuqani waxa uu horudhac u yahay taxane aynu maalmaha dhow uga hadli doono quwadaha ciidan ee wadamada Islaamka gaar ahaan kuwa kaalimaha sare uga jira tabarta military ee dunideena